mas-uuliyiintani ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan kuwa maamulka degmada Kismaayo oo kaashanaya qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala gobolka gaar ahaan hay'adda NRC ayaa maanta waxa ay dib u dejin u sameeyeen ilaa 550 qoys oo isugu jira dadkii ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee Dadaab ee wadankaasi Kenya iyo kuwa barakacayaasha ah ee dalka gudihiisa ku barakacay. Cabdullaahi Cumar Kaynaan oo ah maareeyaha hay'adda NRC ayaa uga mahadceliyay dowlad goboleedka Jubbaland bixinta dhulka iyaguna dhankooda ay tilmaameen in dadkan Soomaaliyeed ay ugu deeqeen dhismaha guryaha halka laga hirgeliyay. waa ilaahay mahadiis maanta hadaan halkan soo gaarnay oo aan loo dhigay xafladan in ay la guddoonsiiyo dadkii barakacayaashii iyo dadkii ka soo noqday Dadaab oo guryaha ay u dhiseen hay'ooyinka hay'adaha NRC Kibora waxay ka dhistay konton guri oo IDPs-ka loogu talagalay waxaan kaloo dhisnay 734 guri oo laga dhisay boqolka guri korkooda oo dhismaha ayaga 698 loogu talagalay dadkii ka soo noqday Dadaab. muhiimadda guud oo hadda aan arintan ku soconaa waxay tahay 1484 guri oo hadda dhisan. gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timijilic iyo sidoo kale Rashiid Cabdi Maduulo oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo ayaa iyaguna dhankooda kula dardaarmay dadkan Soomaaliyeed ee ka soo laabtay xeryaha Dadaab iyo kuwa dalka gudihiisa ku barakacay in ay ammaanka ka shaqeeyaan goobaha guryahan looga dhisay. waxa kaliya maanta halkaas in lagu xusuusto u baahan in dawlad ay tahay wax fiican. ninkii dawlad garanayo dawlad garanaya ninkaan garanaynin inuu sida dawlad inay fiican tahay oo dhul inta lagu siiyay haddana lahaanshahaagii lagu siiyay hadda lagu dhisay waxaan u maleynay meel kale oo laga helay ma jirto. arintan hadda waxay sharaf u tahay dawladda Jubbaland sababtoo ah dowlad goboleed hadda bixisay aqoonsi ama sabarlooga dhuleed oo inta dhul la siiyo haddana sharci la siiyo waxa ugu horeysa Jubbaland. waxaan isugu nimay halkan inaan nusaaka warqadahoodii lahaanshaha la guddoonsiiyo dadkii la dejiyay xaafadda shaqaalaha meesha loo yaqaan VF Madow dadkaasoo guryihii halkaan looga dhisay iyo dadka Kibora. sidoo kale waxa arintan ka mahadceliyay qaar ka mid ah dadkii guryahaasi loo dhisay iyagoona sidoo kale codsaday in deegaanada hadda guryaha looga hirgeliyay ee gudaha magaalada Kismaayo ay ku haysato biyo la'aan iyo wada la'aan iyagoona ka codsaday dawladda iyo hay'adaha inay markaasi ay qayb lixaad leh ka qaataan sidii loo dhameystiri lahaa adeegyada u baahan yihiin. Aadan Maxamed Salaad, raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.